Sidee ku faafaa cudurka COVID-19? Cudurka dadku waxay ku kala qaadi karaan marka ay gaaraan dhibco yar oo qoyan oo ka soo baxa sanka iyo afka qof qaba cudurka COVID-19 hindhiso ama uu kugu neefsado dhibcahan fayraska oo kadibna u gudbaya qofka sidaasna uu ku qaadayo qofka cudurka. Calaamadaha cudurku waxay ku soo baxaan 2 ilaa 14 maalmood waana sababta dadka looga shakiyo cudurka looga codsanayo in ay dadka soo dhexgelin muddo 14 maalmood ah. Maxay yihiin calaamadaha cudurka COVID-19? Calaamadaha cudurka waxay u egyihiin calaamadaha durayga ama hargabka sida qufaca, qandho iyo neefsashada oo qofka ku adkaata marka uu gaaro xaaladaha culus. Caabuqan waxa uu sababi karaa oof-wareeb ama neefsashada oo qofka dhibta waana unug dili kara dadka. Haddaba yaa halis ugu jira cudurkan? Dadka waayeelka ama dadka ay da'doodu tahay 65 iyo wixii ka weyn. Xusnow dhalinyarada qaangaarka ee caafimaadka qaba oo ku dhici kara cudurkani. Khubarada caafimaadku waxay sheegeen marka la gaaro xilliga qaboobaha ay macquul tahay inuu kor u kaco cudurka COVID-19. Sidaas daraadeedna layna farayo inaynu raacno tallaabooyinka looga hortagayo cudurka. Haddaba sidee ayaa naftaada iyo qoyskaaga u ilaalin kartaa cudurkan halista badan? Gacmahaaga marar badan ku dhaq saabuun iyo biyo muddo 20 ilbiriqsi ah iskana ilaali in aad u dhawaato qof ay ka muuqdaan calaamadaha hargabka ama durayga. Afkaaga iyo sankaaga ku qaba xagasha suxulka oo laaban ama waraaqda afka lagu tirto marka aad qufacayso ama aad hindhisayso. Isla markiiba warqadda afka tirka ku rid weelka qashinka oo kadibna dhaq gacmahaaga. Haddii aad isku aragtid calaamadaha xanuunka oo yar sida qufac iyo qandho, gurigaaga joog oo ka fogow dadka kale. Haddii aad dareentid neef qabasho, fadlan la xiriir wicitaanka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka oo ah 343 si lagu caawiyo. Mashruucan waxaa fulinaysa hay'adda NRC oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland waxaana maalgeliyay King Salman Humanitarian Aid.